waxaan rabaa inaan maanta ku tuso qaabka loo sameeyo buugaagta inta la qoro lana sii iibiyo. halkan waxaa kaaga muuqda buugaag la qoray raggaan qoreen rag caan ah Richard Bowdad oo Robert Kiyosaki la yiraahdo weeye. Soomaalida kale waa qortaa oo Soomaali caan baa jirta kana buugaag qortay oo markastana waxaad maqashaa buugaag meel lagu daafuray buugta arkaysa Soomaaliya wada qortay. waxaan rabaa marka buug qaabka loo qoro maanta inaan ku baro sidee buug loo qoraa. marka imaado qaabka buug loo qorayo buug horta inaad qortid waxyaalaha waxaa jira qofka muhiim ah mar walba waxa ku sababay inuu ogaado horta buugga maxaa kugu sababay in aad buug qortid, maxaase fikradda ka dambaysa ee buugga inaad qorayso maxay tahay, maxaa kaleeto oo aad ka sii rabtaa mustaqbalka buugga inuu kuu noqdo. su-aalahaas haddaad jawaabahooda u heshid buug waa qori kartaa. waayo buug inuu qofku qoro waxa weeye wax sahlan balse caqabad bay kala kulmaan dadka mar walba buugaagta qoro oo ah caqabadaas oo ah in qofka oo dhexda uga tago buugga maraya. marka maanta waxaan rabaa inaan ku tuso itaabsi kaaga dhigo qodobo dhowr ah oo iskor taago hadii ilaa 4 qodob oo iskor taago qodob kastana uu muhiim ku ahaan doono. waayo waxyaalo aniga aan soo baaray ayaan rabaa inaan kula wadaago si mustaqbalka markaad damacdo inaad buug qoraysid ay mar walba sahal kugu noqoto qoritaanka buugga. okay haddii aan u guda galno horta buugga inaad qortid waxaa waaye waa wax aad u sahlan. waa haddii mar walba maskaxdaada ay shaqaynayso oo ay tamcinaa markaas kasoo maaxato in buugga aad qortid. number 2 horta waa inaad raadsataa meesha aad ku qori leed buuggaan. waayo buugga bulsho dhexdeeda ama meel shaah lagu cabaayo ama meel dad iskugu imaanayo ciyaaro lagu daawanayo ama meel adii asxaabtaada iskugu imaadeen wada joogtiin buug ma qori kartid. waxaad u baahan tahay buugga meesha ku qoraysa inaad tagtid meel space fiican oo qayli iyo buuqan lahayn. ugu yaraan guri dhexgal, gurigaas dhexdiisa kusoo qor buuggaada oo waqtina isa sii mar walba oo teleefoonadan iska dami. waayo taas waxay kaa saacidaysaa micnaha maskaxdaada in mar walba ay usoo jeedo qoritaanka buugga. teleefoonadan iska wada dami, buugga usoo jooso, tartiib u qoro, maskaxdaadana mar walba ha ahaato mid buugga focus ka saarayso. okay number 2 waxaa kaloo soo diyaarsanaysaa waxyaalihii wax ku qori lahayd sida qalimaantii, buugaagtii, wax alla wixii aad u baahnaan lahayd ood bannaan uga baahan lahayd waa inaad soo dhigtaa mar walba agtaada wada yaalaan. intaas markaa wada diyaarsid oo meesha aad ku qori lahaydna tagtid wixii wax lagu qori lahaana aad qaadid. kulli wax weyn uma baahnid haddii buug iyo qalin caadi aad qaadanaysid oo waxyaalihii la qoranaysid oo mar dambe aad rabtid inaad haddana computerka aad ku qoratid ayadana aad u sahlan tahay. balse hadda midda ugu muhiimsan hadda caalamka la joogo waxaa weeye waxaad u baahantahay bas meel space oo qaylo lahayn iyo computerka bas u baahantahay iyo koob biyo kaaga yaallo oo markii maskaxda ku daasho xoogaha aad fikirtid koob biyo ku dhufato banaanka saa ugu raadsan lahayn. waayo waxaan kaa celinayaa banaanka aaditaankiisa. waayo maskaxda markay shaqaynayso qofka oo micnaha wax soo maaxanaysid haddaa banaanka aadid xoogaha carqalada galaysaa waxaana kaa kala dhumaya fikirkii. okay haddaa lambar kale u galno waxaa weeye marka buugga markaa qoraysid waa in horta fikirkaaga ku wada qoran yahay illustration wax la dhahaa ama breakdown. waa in horta kuu qoran yahay buuggaada uu leeyahay chapter, uu leeyahay micnaha ciwaano kala duwan wixii dhan aad sii diyaarsatay oo og tahay ciwaanka ka hadlaysid, qaabka ka hadlaysid. halna ha iloobi mar walba buuggaada mar walba wuxuu leeyahay bilow iyo dhextaalo iyo dhammaad uu leeyahay. saddexdaas mar walba waa muhiim qoritaanka buugga. waayo buuggaada waa inuu bilow leeyahay. bilow markaan ku dhahayo buuggaada waa inuu meel ka bilaabanayo. meelaha laga bilaabayo buugga saddex waa yaa loo kala qaadaa. waa inuu buugga number 2 oo chapterda ugu horeysa waa in ay leedahay soo jiidasho gooni ah. waayo haddii wax aad xooga saarayso waqti ku luminaysid waa in buugga ugu horeeyo ama chapterda ugu horeeyo micnaha waxaa weeye buuggaada chapter u kala qaybin doontaa. waayo buug ma aha warqada la qoraayo, buug waa full buug. marka waxaad u kala qaybin doontaa chapter. haddii meesha hadda aan ku tuso chapterda marka waxaa loo kala qaybiyaa badanaa chapterooyin kala qaybiyo yaa chapterda ugu horeysa yaa waa inay midda ugu muhiimsan oo ugu horeysa ay ahaato. waxaa loo kala qaybiyaa waa inay philosophical mida la yihahdaa oo micnaha philosophy ay ka dambeysa mar walba oo maxaa la dhahaa ay meel aad tiigsanaysid oo philosophy aad ka sheekeynaysid wax lasoo dhaafay iyo dad hore wax dhaceen waxaa ka sheekeynaysa inuu buuggaada ahaanayo oo micnaha halkaas aad ka bilaabaysidba ama aad ka bilaabanaysa si micnaha dramatic wax la yiraahdo ugu yaraan si micnaha oo ay kala dhacdo aad ka bilaabayso oo leedahay halkaas ka bilaaban. tusaalahan hadda haddii aan iskor taagno hadda meeshaan arkaysa meeshaan buuggan waxaa weeye la yiraahdo Toni Morris gabar la yiraahdo qortay waashan buuggan waa arkaysa Toni Morris qortay buuggan
kuwa kalena waa jiraan oo hadda gadaal aan kaa tusi doono hadda midda buugan kaleeta Elizabeth aliraayadana buugta waa dadka micnaha ugu sareeyo qoro waxaana marka waxyaalo ay isticmaalaan inaan kaa tuso oo ah Toni Morrison hadda tusaale ahaan haddii aan usoo qaadano wuxuu isticmaalay gabadhan badan waxay isticmaashaa sida qaabka ay kaleete oo dramatic mar walba buugta isticmaashaa taasna waa mid micnaha best selling books ka dhigto waayo buugga marka adiga aad qoraysid maaha buug aad u qoraysid wax hoose taasoo marka hore ka soo hadalnay oo inaad ka fikirta buugga qaabka aad u qoraysid iyo meesha focus ka saaraya tusaale ahaan haddii hadda aad ka bilowdid haddii aad ka bilowdid mahmaahiyo aad ku bilowdid ama aad ku bilowdid furashada ugu horeyso midaas ugu muhiimsan oo chapter ugu horeyso waa inay ahaataa mid aad ugu muhiimsan oo qofka ku celiso buugga inuu sii akhristo mar walba ay waxaa kaloo jiro gabadhan kaleeta ayadan sidoo kaleeta waa buugga qorta waxa weeye ayadan mar walba waxay best selling books ay leedahay oo waqtiga hadda karantiga ay leeyihiin ninkan kaleeta leeyahay George asagana oo arkaysa George Orwell waa 1984 buugtan Amazon iyo meelaha lacagta lagu gado aad bay lacag uga joogaan marka haddii marka ay dhacayso inaad adiga rabtid in buug inta qortid buuggaada uu noqdo buug focus leh waayo buug markaan ku dhahayo maaha buug inta wax yar aad qortid 2 page 3 page markaad marinaysid meel aad u wixisid aad garan weydo hore u sii socodsiis taasoo midaan ku oranaa marka ugu horeyso bilowga ku dhahay buuggaada inuu focus leeyahay sababta u qoraysiyo wax ku kallifayna buugga inaad ogtahay oo ku cadahay haddii mustaqbalka buuggaadana wuxuu dhimi kara iyo wuxuu ku dheefsin karan waa inaad ogtahay intaas markaa meel dhigatid buuggaad toos u qori kartaa haddii marka aad jeceshahay buugaagta nooca camal inaan idin soo gudbino qaabka lacagta looga sameeyo Somali Online Money waa meesha hal mar walba aan kusoo gudbino qaabka lacagta looga sameeyo qaab kasta iyo haataba sida maqaalka loo qoray website waxna maal kusoo gudbinaa nooc walba kusoo gudbina oo video nooca meeshan ku wada jiraan wax ku anfacayna kulli wad ka wareeraysa meeshan Somali Online Money wad kusoo beeri kartaa marka videogana like saar si micnaha haddii waxa ka heshay videogan haddii marka aan ku geeyo qaabka hadda lacag la buugan haddii uu ku anfaco oo buug aad qortido adiga ilaahay ku sahlo buugga qoritaankiisa dhamaysid waayo buug waxa u qoraysid waa un laba mid in adiga hobbigaada yahay oo waxa ka sheekeynaysid waayo mar walba buug wuxuu noqon karaa buug micnaha mustaqbalka waxa ku dheefsin kara waxna ku dhimi karo marka waa in asna adiga ka fikirtaa haddii ka hadalno marka buug inta qortay buuggaada lacag ka sameyn kartidna Soomaaliya waa aragtay meelo badan buugyo lagu daafuraa laakiin hadda meelaha hadda ugu caansan hadda Soomaalida waxa ku arkaysa Amazon dhexdeeda Amazon waa meesha best selling ugu weyn oo marketplace-ka loogu maado buugta waxa ku arkaysa buugta kulli in meesha lacag ka joohada buug waxaa arkaysa asagoo 1984 oo laga sheekay mar walba iyo waxa arkaysa intaan 4.5 rate haystaa buugta marka halkaas aydan ku gadi kartaa oo Amazon u gadi kartaa wax kale oo yiri kartaa dad waxa jira gooniye oo hadda Soomaaliya hatta waxa arkaysa meel buug lagu gado waa jiraan oo meel walba ama gobol walba Soomaaliya ku yaala magaalo kasta oo magaalo oo madaxeedeeyo buugta waa lagu iibiyaa waxay leedahay madbacad buugta lagu iibiyo buug aad ka soo helaysid waayo dad baa qoray Soomaaliya oo qortay focus-kana way saareen oo micnaha buugta marka buugta marka marna qofka bulshada wuxuu ku soo kordhiyaa oo si free uu kordhiyaa oo madbacada galitaankiisa unba xoogaa laga qaado dhinaciisa micnaha mashaariic wixii loogu sameeyo marna waxa weeye qofka asaga caad u gato haddii aan ku geeyo marka Amazon haddaan ku geeyo Amazon buugta waa lagu gadaa balse adiga hadda wax macquul ah isweydiinaysid buuggan inta saan ka kara Amazon oo intaana u gadi karaa waayo Amazon marka keenaysid Amazon charger ay qaadanaysaa inta kalena adiga ku siinaysa buuggaadina meesha lagu bulshadaynaya haddii markaas inaan ku tusno buugta qaabka loo inta anako buug qornay oo buugga diyaar ku yahay publishing-ka sida Amazon loo geenaya ayada inaan ku tusno diyaar u nahay marka videogan waa inaan like saartaa kuwa qaybta comment-ka noogu rabtaa ra'yigaada si annagana aan u ogaano baahidaas inay jirto annagana aan u soo gudbino videogaas oo dhameystiran insha Allah taala marka waxaa jirto Kindle bahashan ila Kindle direct publishing baa jirto oo Amazon badan la isticmaalo haddii midkan aad isticmaashid toos ku keenaya meeshan waa Kindle ay kaleeta account ka samaysanaysa meeshan waa isla midkan hadda ku tusay Kindle qaybta ugu horeysa imanaysa self publishing halkan baad ugu publish garin doontaa insha Allah taala halkan aad ugu publish garin account ka samaysanaysa buuggaada meeshan ku upload garanaysa sida alla soo marka haddii marka u baahan tahay inaan soo gudbino oo aan soo xoog soo saarno arrimahan buugta qaabka lacagta looga sameeyo qaybta comment-ka oo nagu reebi kartaa annagana waxaan ka sameyn doonaa si toos ah in qaabka lacagta looga sameeyo qaabka meesha lagu gado Amazon iyo meelaha kale ku tusi doona insha Allah taala asoo downloadable laga dhigayo waa ku tusi karnaa insha Allah taala marka comment-ka nagu reeb oo video-gan video xir balanta insha Allah taala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh